سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أخواني وحي إنو مريسي كتاب كيني رحيق المختوم درسي كساب سنة قومنكي عربي يسيدا أي أقيب سنايا waxay taariikhyahanadu u qaybiyeen saddex qaybood oo ay sinji ahaan ka soo jeedaan oo kala ah carabtii hore oo ah carabtii faca fogeyd oo aan tafaasiil dhammaystiran laga hayn taariikhdooda waxaana ka mid ahaa caad thamuud dasam jadiis iyo camalaqa iyo kuwo kale oo fara badan carab saafi ah oo ay ka soo jeedo firkii Yacrub bin Yashfub bin Qahdaan waxaana loo yaqaan carabtii qaxdaaniyiinta carab la carabeeyay oo ah carabta ka soo jeedo firkii Nabi Ismaaciil alayhi salaam waxaana loo yaqaan carabtii cadnaaniyiinta carabtii waxarbaysay oo ah beelaha reer qaxdaan waxay deegaanaha u ahaa dhulka Yaman waxayna u sii kala baxeen qabiilooyin iyo jilibyo waxaana u caansanaa labada qabiil ee kala ahaa Himyar oo ay jilibadeedu u magac dheeraayeen Sayd al-Jamhuur iyo Qudaaca iyo Sakasik Kahlaan oo ay jilibadeeda u caansanaayeen Hadmaan iyo Anmar Dayi Mudxij Kindah iyo Lakham Judaam Asd Aws Khasraj iyo firkii Jafna oo ahaa boqoradii Sham jilibyada Kahlaan way ka haajireen dhulka Yaman oo waxay ku faafeen hareeraha jasiiradda Carabta waxayna haajireen mar in yar ka horeysay daadkii weynaa ee Sayl al-Aarin ee biyo-xireenkii Mari ee Saba dumiyay markii ay hawlahoodii ganacsigu joogsadeen oo ay dawladdii Roomaanku bad iyo bariba ka xayirtay markii ay Sham iyo Masar qabsatay waxa iyana suuragal ah loolankii ka dhaxeeyay jilibyadii Kahlaan iyo jilibyada Himyar inuu sababay haajiridii reer Kahlaan taasna waxaa tusinaya haritaanka reer Himyar ku hartay Yaman iyadoo reer Kahlaan guureen haajiridii jilibada Kahlaan waxaa loo qaybin karaa afar qaybood oo kala ah sida tan Asad kuwaas reer Asad la oran jiray iyagoo ka hoos jira xukunkii Imraan bin Amr Musayqba way guureen iyagoo dhulka Yaman hadba meel ka degaya oo horseed ka sii dirsanaya ilaa ay ugu dambeyntii dhanka waqooyi abaareen markii dambena waxay u kala degeen sida tan Saclaba bin Amr oo bani Asdi ka mid ahaa wuxuu u leexday dhanka Xijaas wuxuuna degay Saclabiya iyo Diiqaar dhexdooda dabadeedna markii ilmuhu u koreen oo u gaamureen buu Madiina u guuray halkaasuna degay oo dalka yeeshay Saclabahaas ilmihiisii waxaa ka mid ahaa Aws iyo Khasraj oo ahaa ilmo Xaaris bin Saclaba Xaaris bin Amr oo loo yaqaan Khusaaca qoladiisiina waxay isaga goosheen dhinacyada Xijaas ilaa ay degeen Mar as-Sahraan dabadeedna waxay ku duuleen xaramka oo dadkii deganaa oo Jurhum la oran jiray ka kiciyeen oo sidaas Maka ku degeen Imraan bin Amr iyo tolkiis waxay aadeen Numaan halkaasoy dhadhabaha u aaseen qabiilka Asdi kaasoo ubadkiisii degeen Tihaama waxaana loo yaqiin Asadi Shaanu Jafna bin Amr iyo reerkiisii waxay aadeen Sham Suuriya halkaas bayna isaga iyo ubadkiisu degeen oo ka bilaabeen boqortooyadii Qasa magacaas oo loogu bixiyay ee la oran jiray Qasaan iyo Xijaas ku yaalay oo ay degeen intaysan Sham Suuriya u guurin Lakham iyo Juudaan waxaa ka mid ahaa Nasr bin Rabiica oday Manaadirah ah boqoradii Xira Banu Dayi oo iyana sidoo kale u guuray dhanka waqooyi si ay u degaan labada buurood ee lagu kala magacaabo Buurah Ajaah iyo Salmaah markii dambena labada buurood waxaa loogu magac daray iyaga oo waxaa loo baxshay buurihii Dayi Kindah oo degay Bahrayn dabadeedna waa laga saaray oo loo barakiciyay xagga Hadramaut iyo Najd waxayna halkaas ka
waxayna halkaas ka dhiseen dawlad baaxad leh oo durbadiiba duntay oo raadkeedii suulay. qabiilo kale oo ximyar ka mid ah oo loo yaqaan Qudaaca waxay ka haajirtay Yaman waxayna degtay baadiyaha Samawa oo u xuduuda Ciraaq ku taala. carabtii la carbeeyayna asalkoodu wuxuu ka soo jeeday awowgood Nabi Ibraahim calayhi salaam oo Ciraaq deganaa, gaar ahaan degmo la oran jiray Aar oo u dhow Kuufta daanta galbeed ee webiga Furaad. qodaal cilmi baarid ah oo degmadaas lagu sameeyay wuxuu tafaasiil ka bixiyay sidii degmadaasu ahaan jirtay, gaar ahaan qoyskii Nabi Ibraahim calayhi salaam iyo xaaladii diinta iyo bulshada beeshaas. waxaa caan ah in Nabi Ibraahim calayhi salaam degmadaas uga haajiray Xaaraan, iyadana uu Falastiin ka sii aaday oo saldhig uga dhigay fidinta diinta. socdaallo badanna buuna dhulkaas iyo meelo kaleba ku tegay. markii uu aaday Masar, fircoonkii Masar baa isku dayay inuu faraxumeeyo xaaskiisii Saarah. alle baase ka xijaabay oo xumaantiisii ku celiyay. fircoonna inta garowsaday karaamada Saarah alle siiyey uu gabadhiisii Haajira khaadimad uga dhigay, iyana Ibraahim bay u hibaysay xaas ahaan. Ibraahim dabadeed Falastiin buu ku laabtay. Haajirana wuxuu alle ka siiyey Nabi Ismaaciil calayhi salaam. Saarah waxay aad uga maseyrtay Haajira ilaa ay ku kaliftay Ibraahim inuu Haajira oo Ismaaciil oo murjuc ah sidata u diraa tog lama degaan ah oo kur yar agtiis tahay oo Xijaas ku taal oo u dhow xaramka oo aan biyo iyo baatoona lahayn, oo inta dejiyay isaga haajiray oo alle uga tegay. wuxuuna ku dhaafay xoogaa saad timir iyo biyo ah. muddo yar kadib saadkii waa ka go'ay. markaasuu iyada iyo wiilkeedii yaraa Ismaaciil wuxuu alle u burqiyay ceelkii Samsamka. isla markiina waxaa meeshii soo degay qabiilo kale oo Yaman ah oo Jurhumtii abaa, waxayna idan weydiisteen Ismaaciil hooyadii Haajira. sidaas buuna alle fadligiisa biyo iyo baadba ku siiyey Ismaaciil hooyadii oo faraj ugu furay. Ibraahim hadba muddo markii uu maqnaadaba dib uu Maka ugu soo noqon jiray, isagoo fiirinaya sida warasadiisa tahay. safaradaas uu halkaas ku iman jirayna inta ay ahaayeen lama oga. waxaase taariikhda xafiday 4 socdaal. alle kor ahaaye wuxuu quraanka ku sheegay inuu Ibraahim calayhi salaam riyo ku arkay isagoo Ismaaciil gowracaya. wuxuuna ku dhaqaaqay inuu amarkaas riyada lagu faray fuliyo, maxaa yeelay riyada nebiyadu waa xaq. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. waxaa ku xusan Tawraada in Nabi Ismaaciil calayhi salaam uu Nabi Isxaaq calayhi salaam ka weynaa 13 sano. tixaalka qisada quraanka ku xusan waxay tusaysaa in Ismaaciil Isxaaq ka horeeyay, maxaa yeelay markii arrinta Ismaaciil laga sheekeeyay kadib Ibraahim loogu bishaareeyay Isxaaq. qisadaasi waxay tilmaamaysaa in Ibraahim hal socdaal ugu yaraan ku yimid Maka intaan Ismaaciil barbaarin. 3 safar oo kalena waxaa si taxane ah u wariyay Bukhari oo ka wariyay Ibn Abbas fiiri Sahih al-Bukhari kitaabka nebiyada. markii Nabi Ismaaciil calayhi salaam barbaaray oo afka Carabiga Jurhumka ku ka bartay oo ay inta u bogeen gabar ku dareen, hooyadiisna ay geeriyootay, baa waxaa Nabi Ibraahim u muuqatay inuu wiilkiisa soo arko. Ibraahim wuxuu gurigii Ismaaciil
ugu yimid xaaskiisii isaguna waa maqnaa markii uu ka warsaday gabadhii wiilkiisa qabay xaaladda noloshooda way u dayrisay waxayna sheegtay inay nolol qallafsan ku nool yihiin wuxuuna Ismaaciil u faray inuu bedelo catabada guriga Ismaaciil waa fahmay in aabihiis taas ula jeedo afadaada fur waana furay oo mid kale buu guursaday oo ah gabar uu dhalay Udaad bin Camar oo ahaa duqi Jurhum Ibraahim mar kale buu soo laabtay wuxuuna gurigii Ismaaciil ugu yimid gabadhii cusbayd ee uu dabadii guursaday Ismaaciilna markaas uu ka maqnaa markii uu xaaskiisii cusbayd warsaday xaaladda noloshooda khayr bay u sheegtay Rabbi bayna ku shukriday markaasuu Ibraahim wiilkiisii Ismaaciil gabadhii u faray inuu catabada gurigiisa deysto waa inuu u haystaa iyada xaas ahaan oo ku laabtaa Falastiin marka walaalayaal waxa aynu halkaa inoogu dhan maanta darsigeennii ku saabsanaa kitaabka Raxiiq al-Maktuum insha Allah darsigeenna labaadna halkaas ayuu inooga sii socon doonaa wuxuuna ahaan doonaa isku xukunkii iyo talintii carabtu sidii ay ahayd xilliyadaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh